ka imaanaya degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay suuqa magaaladaasi ka oo dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh. qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ahaa miinada dhulka lagu aaso ka oo dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh lamana oga cid ka dambeysay qaraxaasi dhibtaasi geystay. suuqa uu ka dhacay qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ahaa goob saxmad badan sidoo kalena ay ahayd goob ay dadyow badan isugu imaaneen sidoo kalena ay ka dukaamaysanayeen. suuqan oo ah suuqa weyn ee ku yaala degmada Qoryoole ayaa haatan la sheegayaa inuu ku jiro xaaladaasi ka duwan sidoo kalena ay ku sugnaayeen dad rayid aad u fara badan. warar kale oo ayna helayno ayaa sheegaya in xilliga qaraxa uu dhacayay in yar ka hor ay marayeen ciidamo kuwaas oo ah kuwa cashuurta ururiya. ciidamada booliiska ayaa gaaray goobta qaraxa ka dhacay kuwaas oo goobta xiray isla markaana dadka u diiday inay galaan goobta. qaraxan dhaliyay khasaaraha dhimashadii dhaawac leh ayaa la ogeyn cid ka dambeysay sidoo kalena qaraxyada noocan oo kale ah ayaa inta badan waxa geysta ururka Al-Shabaab. ciidamada goobta isku gadaama ayaa haatan la sheegayaa inay ururinayaan dadka dhibta ay ka soo gaartay halkaasi iyadoo dadweyne badan ay ku sugan yihiin goobtaasi si ay u raadiyaan ehelkooda oo wax ku noqday. suuqa oo ahaa saxmad badan sidoo kalena ay isugu yimaadeen dadyow badan ayaa la sheegayaa in haatan uu ku jiro xaalad jahawareer. si kastaba ahaatee degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ahayd degmo ay ragaadiyeen colaado sokeeye siba colaadii ugu dambeeyay dagaal beeleedyada kuwa oo ay ku dirirayeen beelo walaalaha halkaasi wada daga. wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.